isboortiga degmada dhawaanna waxaan qaban doonaa tartan loo magac baxay isdhexgalka iyo nabadda degmada Balcad oo rabo kooxihii dhan degmada isku imaan doona hadduu ilaahay tartankan wuxuu qayb weyn ka qaadanayaa bulshadii degmada Balcad isku keenaa hadduu ilaahay aad u maasantiin waqtiga aad u yar darteeda waa maasantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh gudoomiye maamulka adiga iyo maamulka kula shaqeynaya Soomaalidu waxay tidhaahaa nin heelamaala hadayo wuxuu yidhi hidaayo ilaahay weeyaan oo hiba igu raacday heeladu taa waxaan uga wadaa hidaayo ilaahay weeyaan oo warshadii noo badbaaday oo tiimkeegiina maalin walba sida u guuleysanayo waa hidaayo ilaahay oo ilaahayna siiyay weeyaan haddaan taariikhdeeda gadaal ugu noqdo tiimka warshadu wuxuu soo bilaabmay 1971 ilaa maanta oo 26 aan joogno sidaas uu dhisan yahay sidaas maanta waxa farxad weyn oo ah iyadoo la xusay tiimkeennii Soomaali Takis oo aad ugu faraxsanahay aad iyo aad uu soo nooleeyay gudoomiyaha Qaasim Cali Nuus cadawgiisa cagta hoostiisa la geliyay waa farxad weyn bay noo tahay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan u leenahay Soomaali Takis sii jirto ha guulaysato ha waarto ha inoo kacdo ilaa iidankiis waxaanu lahaan jirnay tiiman badan oo habliya inamaba leh oo ku ciyaaray gobolka oo ku ciyaaray dabada loo qaado Soomaali Takis ha noolaato ha waarto ha jirto ha joogto gudoomiyaheenna ha jiro ha joogo maanta waxaa halkan ku soo gabagaboobay tartanka Samtakis Federation Cup kaasoo ah markii ugu horeysay ee laga taabageliyay degmada Balcad waxaana ku guuleysatay kooxda Shibis ee Facaweyn waan u hambalyeeynaa sidoo kale kooxda laga guuleystayna waxaan leenahay way dadaashay waxa ammaan mudan gudoomiyaha sportska degmada Balcad oo garab taagan yahay misana taaba kuleenaya gudoomiyaha degmada maadaama ku dhawaad sanadkan degmada laga qabtay 8 tartan kala duwan haatanna dhex maraya tartankii akademiyada waxaan leenahay degmada Balcad waa talaabsatay sportskeeda waa israacday gudoomiye Kabilan isbedel muuqdo ka muujiyay sidoo kale waxa intaas aga mahadcelinaynaa maamulka degmada Balcad oo hiliyo u taagan oo ugu horeeyay gudoomiyaha degmada waxaan leenahay aad iyo aad u maasantahay inta in ka badanna waa ka rajaynaynaa marka la soo dhawo waa kuleenahay insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala